iyadoo ay socoto xabad joojinta laba toddobaad oo lagu hakiyay dagaalka ay ku lug leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran dalalka saliidda soo saara ayaa yeelanaya muhiimad ay u leeyihiin dowladaha ku tiirsan. xaaladdan ayaa daba socota go'aanka Iran ay ku xidhantay marinbiyoodka Hormuz oo ay gacanta ku hayso oo ah marinbiyood ay maraan 20% saliidda iyo gaaska caalamka, waxaana 95% hoos dhac ku yimid socodka dadka iyo gaadiidka caalamka. Arrintan ayaa keentay in qiimaha shidaalka cayriin iyo waxyaabaha ka soo baxay ee mara ciriiriga badda sare kac ku yimaadaan, iyadoo saliidda Brent ay gaartay $120 sida uu qoray wargeyska INN. BBC ayaa falanqaysay 10 dal ee ugu badan ee soo saara saliidda cayriinka ah iyo waxyaabaha ka soo baxa. in ka badan 7 sano oo xiriir Mareykanku wuxuu ku jiray kaalinta koowaad ee suuqa wax soo saarka saliidda adduunka, isagoo soo saari jiray in ka badan 22 milyan oo foosto maalintii. Mareykanka ayaa sidoo kale leh ahna dalka ugu badan ee isticmaala saliidda cayriinka, taasoo ay ugu wacan tahay tirada dadka iyo baahida sii kordhaysa ee dalkaasi ka jirta. Gobolka Texas waa hormuudka soo saarista saliidda ee Mareykanka, aad ayuu ugu horeeyaa New Mexico oo ku jirta kaalinta labaad, iyadoo wax soo saarka maalinlaha ah uu 3 jibaar ka badan yahay kan dambe. Saudi Arabia maalintii waxay soo saartaa 10 milyan oo foosto. Sacuudigu waa kan ugu badan ee dhoofiya saliidda suuqyada adduunka, isagoo soo saaro 10.88 bilyan oo foosto maalintii. korarkaas dartii waxay noqotay tan labaad ee dhoofinta caalamka ee saliidda ugu weyn. Wadamada xubnaha ka ah ururka OPEC, sida laga soo xigtay maamulka macluumaadka tamarta adduunka, Iran waa dalka saddexaad ee ugu weyn adduunka ee haysta kaydka saliidda cayriin, waana dalka labaad ee ugu badan ee haysta kaydka gaaska dabiiciga ah. Inta badan 1.4 bilyan oo foosto oo saliida oo la dhoofiyay sanadkii 2023 waxaa laga iibiyay Shiinaha oo ay soo saartay Iran. Khilaafka Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil ayaa keenay inuu xidhmo marinbiyoodka Hormuz oo ah marinbadeed muhiim ah oo boqolkiiba saliidda caalamku 20 ay halkaasi maraan.